مين ما جعفري يوم قالنا برداتي ديراني ما نمشي عين كما غيالو كومي جريوا هذا تمش لها هذا قولي تغو لو تمافرو يو حبلا يتغو يو سلامة تيسير ما سلو قولي تيري تيراهيو تايدا مويي كاورادي غاي بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت توحى برنامج كان قصة على دونا كيلا برنامج كان وحاسي هذه هذا وتفكر دونا أما نشرح دونا فائدة السائل قصار السائل دكتور كميدا دكتور الصوماليات أو متخصصين عافية النار إذا حيوانك وحنا وأقون هذه الدكتور ليه كيلا هاكن عن قصة على دونا ومشكلة كيلا إسكالي دكتور عبد النور قصة كيلا سديسة xoolaha la dhaqdo ee ay Soomaalidu dhaqato ama se aan dhahno Afrikada North Africa Mongolia ilaahay hadduu ku idmahayo East Africa xoolaha ay dhaqdaan dadkaas xoolaha ugu muhiimsan dadkuna runtii ay aad ugu tiirsan yihiin intaas waxaa dheer gaar ahaan markaan fiirino ummadda Soomaaliyeed inta ay degto ee lagu yaqaano sida jamhuuriyadda Soomaaliya كلمة شرط ليش هذا اللي يقال سومالي جنبير أما اللي يقال NFD كيف كترسل جيبوتي ندك سومالي كلها جيل الرحمن وصودنا وتير سنتهاي وأنا شيء آد هابط قلبه نوش النظرة أي آد أرنتاس أنيقو ماركتي
يا وحد علي إنا مارت الكوب الجيل تنزانيا يكينيا دحدادا النجو الجرين ميشاس ميشان كينيا تنزانيا ودن كأننا هذا ويسكن بعض أول ما أنا هذا أيادنت وحدوك اللي إلى كوب الجيل ميل عندك النهاية جيل أسمع كوب برنامج على المعدل اللي في تنزانيا بعد ذلك يوم ذيك بعد يسوي رجني أن سوي ذي شيء كل يوم كان ماليا ووقت دونتان سيدا برنامج أن جيل سدي سبع أن فايدوك إليه وحكمدا عن هيسا hilibkiisa barashada ilaahay hadduu iyo iyadoo dhaqan ahaan Soomaalidu ay u isticmaali jirtay iyo marka la doorayo in gabar la doono saldhig waxa uu ahaan jirtay geel marka geel faa'iidooyin badan uu lahaa leeyahay haddana inkastoo ay hadda u muuqato adduunyadii uu ka sii yaraanayo أيام مركز ريفايفل كامل ريفايفل كان جدي على السمية صومالين تجيل إنه سنعرف إنه سنعمانين حولها وجود سنة الصومالية ودقت واجية waxay u tahay for example abaar baa dhacay maantay abaartaas dhacda xoolaha ka soo abaar geela ayaa ugu adkaysi badan Soomaaliduna marka way rataan geela caanaha jiilaal kasta oo dhaca caana ayaa maaragtay caanihiis ma dhamaadaan waxaa jira gabayaal badan Soomaalida ka tirsan gabay ka tiriyay jiri Abdulgahir baa ka tiriyay Abdulgalayax baa ka tiriyay gabayaal aad muhiim u ah oo anigu hadda gabayaal ma mana xafideen ayaa jira aan cali ibn afira waa tuulaha maaragtay mar hadii aan maaragtay ila fiiriyo صدر ما يمر وجرو يا صحصحوقاي سبات على الكسوداني أنا صواريخ دوشة يا صنعة سقط مويانة والبس قيلين وحكى لو أبو سرياب هاي غير سيدي سبا أنا دورجو كمل ماهن وحولها للنقض وقيمتك يقولوا هاي إبلوان يقولوا هاي إنكستو ومدو هذا 1958 أيام ملايين إلى هاي أستراليا جيل لو قاضي مركا جيلاس أيام دورجوجها هانتي سنة يعني جيل دورجوج ما أهن وحولها تطلع سيد الوضع أريجا وكله لكن واحد البرنامج دولة أستراليا هذا كان 1958 كنا هاي ملايين أي سمايين وجيل إنتي كقاعدين إيش هي صوماليا أي جيين أستراليا سير الدايين لكن هذا كان نفترض دب أيام لو حريي والوضع وهذا والله قلا يورو بورن بالله ماشان waxaan ku duubaynaa tixkaba inuu ku saabsan geela oo Soomaalidu aad iyo aad u qiimo badan u dhaqmi jirtay sanadkii hore laakiin sabanadan dambe aad moodo dadku asagoo magaalo xiisaynaya in geeli laga sii jeestay marka ninkii geela ragii dhaqan jiray kamid ahaa oo aad u amaanayay baa wuxuu yiri tixkaba inuu tiriyay geelu wanaag u leeyahay ayuu wuxuu yiri adigoo daqaar badan qaba oo cudur la diifaysan afar daw haddii aad daashido dhulka sare geyso dambar iyo dhaleeya haddaad wadar soo maasho waryaa aniga ii duuban baa dad ugu faantaay cudur daawadii iyo ila darajo gelda dhinaca wuxuu dadka ka tusayay in caanihiisa iyo isticmaalkiisuba ay dawo yihiin ninka geela dhaqaahuna uusan ku badnayn cudurrada bini'aadanka ku dhaca inta badan nin caafimaad qabay
dhanka kale hilibkiisii isagoo ka hadlaya iyo sida uu wax u anfaco ayuu wuxuu yidhi hadduu malagu dilo waa waxaan aqal ku daahnayn deriska iyo xigaalkao dhan bay hilib ku deeqdaay darigtoo min daraf loo cuniyo derajo geelbaa lama gaaro marka ammaantii geela ama gabayaashii soomaalidu markay kala qaadaan ee ninka laga qaado in qiimo weyn oo hore qiimo weyn u fadhiya uu waayey ay ku tilmaami jireen waqtiga haddeer lagu jiro dadkii waxaad moodaa inay dhaqankii iyo xoolihiiba ka gaabiyeen ama ka sii jeesteen oo ayagoo aan waxba ku hayn magaalooyinka soomaalidii wax dhaqan jirtay ay magaalada tuban tahay marka waxaan ilaah ka rajaynayaa dadku inay soomaalidu inay garato inay ku soo noqoto dhaqankii xoolaha iyo qaymihii iyo sharaf geela iyo fardaha iyo xoolaha la dhaqdooda ay ku lahaayeen geyiga soomaalida warkaygii waxaan ku soo gaabanayaa كلها يعني كل هذا waxaan tagay ana meel geel oo ku nool sida baadiyaha waxaan jeclaa geelaas in aad leedahay markaan meesha tagayna maalinta meesha tagayna waxa deganadeen baadiyihii caruur yar joogeen macnaha maamooyin joogeen waxay u yimaadeen macnaha meeshaas duurka ah in geelaas ka faa'iideystaan waxaan maqleen dadka ku daaweeyay macnaha caanihiisa iyo hilibkiisa iyo